ورهي سو دhowaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen wanaagsan walaalayaal, insha allahu tacaala mowduuc aada iyo aada u wanaagsan ayaan caawa ka hadli doonaa biidn illahi tacaala. waxaan idinka codsanaa insha allahu tacaala inaad maaragtay aada videoga sii sheer garaysaan insha allah, maadaama mowduuca aan ka hadlayna yahay mowduuc aada iyo aada u wanaagsan oo bulshada insha allahu tacaala si fiican u anfici doona caawa. waxaan nahay dad islaama, islaamnimaduna waxaa weeyaan ma aha nasab, waxaa weeyaan caqiido iyo wax la aaminsan yahay. sidaas daraaddeed waxaa fiican inaan markasta bal aan isu sheegno oo aan isbaraarujino waxyaabaha wanaagsan oo laga yaabo inaana wax badan ka aqoon laakiin ay dhibaato nagu hayaan. walaalayaal, waxaa meesha ku qoran insha allahu tacaala 9 sifo oo uu leeyahay qofka wacalka ah ama garaca ah. runtii sheeko iska musalsala ma ahan, laakiin waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan idinkaga sheekeeyo 9 sifo qur-aanka sheegaya horta marka hore insha allah waana sheegi doonaa. laakiin yani aayadahaas ilaahi subxaana watacaala cidda uu yani uga hadlay ayaan rabaa marka hore inaan idiin sharaxa insha allah. walaalayaal, waxaa jiri jiray nin dhib badan oo muxuu ahaa kamid ahaa qoladii kufaar quraysh oo la dhihi jiray Waliid bin Mugiira, oo dhalay saxaabigii jaliilka ahaa dagaalkii Badr jabi jiray saxaabada isagoo gaala, sayfullahi almasluul Khalid bin Waliid radiallahu canhu. Waliid bin Mugiira wuxuu ahaa nin shaydaana oo dhib badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam aada u dhibay. qur-aankana waxaa la yihahdaa ninka inta ugu badan ilaahay ku ceebeey u ahaa. walaalayaal, waxaa laga yaabaa ummadda soomaaliyeed inay dhibaato badan muxuu ahaa dad noocaas oo kalaa oo muxuu ahaa sideedan culimmadu waxay dhahaan qofku marka horeba hadduuna ku dhalan biyo xalaal ah waxaa weeyaan inuu wanaagsanaado way adag tahay, taariikhdana lamaba aragaa la yiri. ninkani 2 suuradood ayuu maaragtay qur-aanka ilaahi subxana watacaala uga hadlay, labadana si adagu ilaahi subxana watacaala ula hadlay oo uu nabiga uga digay calayhi salaatu wasalaam, maadaama uu wacal shar badan ahaa. ninkan waxaa la yidhi odagii dhalay 18 sano markuu jiro ayuu sheegtay oo yidhi waa wiilkaygi isku qoray. waxaa la yidhahdaa ninkan dhalay wuxuu ahaa nin taajira, ninka uu ku abtirsado mau dhaline wuxuu ahaa nin taajira, islaanu qabay. islaanti marka bini aadamku weligiisba xoolaha uu jeclaa. odaga xoogaa markuu istiri ninkan umuu kaa dhintaayo waxaa la yidhi nin raacul ghanam ah oo xoolaha odaga u ilaali jiray ayay isu dhiibta si cunug ay u dhasho ay dhaxalka ula wareegto. waxaa la yidhi marka sidaasuu ku dhashay oo wuxuu ahaa nin asalkiisu ibnu zina ah. waxaan rabnaa marka dad badan oo dhaqamadan insha allahu tacaala markaan 9 qodob idiin sheego waxaad ogaan doontaan in soomaalida maadaama xoogaa ay hagaagi weysay dad badan oo noocaas oo kale ah inay ku jiraan ay u badan tahay. dadka noocaasana ilaahi subxaana watacaala sheegay oo dad khayr muxuu ahay leh ma ahan, leanno 9 qodob qofka ku sifooba waxay ila tahay inuu yani khayr haba yaraatee aanu lahayn. suuradda ilaahi subxana watacaala uga hadlay oo koobaad waxa weeyaan suuratul qalam ama nuun dadka qaar xataa ay dhahaan. ilaahi subxaana watacaala nabiga
sala allahu calayh wasalam isagoo la hadlay wuxuu yidhi walaa tudic kulla xallaafin mahiin hamaazin mashaa'in binamiimin mannaacin lilkhayri muctadin ahiim cutullin bacda dalika zaniim an kaana daa maalin wabaniin. allahu akbar. walaalayaal nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa la yidhi walaa tudic ha addeecina la yidhi waa amar. hadda nabiga sala allahu calayh wasalam marka la hadlayo waxaa weeyaa nabigu macsuum uu ahaa. nabigu wuxuu ahay qof macsuum ah oo ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisa yacni liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'akharu ilahay suurat lfatxi ku dhahay. dembiga kiisi hore iyo macaa kowgeli doonaba ilahay subxana watacaala dhaafay. laakiin marka nabiga la leeyahay yaa maxamed sidaas ha yeelin cidda lala hadlayo waa annaga waxaa la rabaa marka wixii nabiga sala allahu alay wasalam laga reebay waa nagala reebay inaan ka fogaan. sababta aan dadka ugu sheegayan waa saas oo kale. ilaahay marka wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ninkan inuu wacdi yahay ilahay subxana wataala qur-aanka ku sheegay. marka ilaahay wuxuu yidhi walaa tudic ha addeecina la dhahaa nabi maxamedow sala allahu calayh wasalam dhaha kulla xallaafin mahiin dhaar badane mid ah oo aad u dhaar badan oo kelmaduu yidhaahba wallaahi bilaahi ku kaba ha addeecina layidhi. hamaazin oo haddana xaqiir ah qof xaqiran oo ilaahay subxaana watacaala agtiisana xaqiir ku ah ibnu aadamka agtiisana xaqiir ku ah. okay mannaacin manci og lil khayri khayrka wanaagoo dhan ma rabiyo. dan guud ha laga shaqeeya haddii la yidhaha ma rabiyo. sadaqada dhiib haddii la yidhaha ma rabiyo. ummadda dhibka kada haddii la yidhaha ma rabiyo. waxaa la yidhaahdaa mannaac. ilahay subxana watacaala magacaas u sameeya mannaacin lil khayri u dhahay waxau mancin badan yahow diidaa khayrka. muctadin xadgudub badan oo mar kasta ummadda ku xadgudba. ahiimin dembi badan haddana muctadin ahiim wuxuu yidhi haddana ilahi subxana watacaala cutullin madax adag wuri. fiiri ah bal si fiican u dhegeysta calaamaadkan fiiri. cutullin madax adag muxuu ilaahay ku dabamariyay marka bacda daalika intaas aan soo sheegnay kadibna zaniimin ibnu zina ah oo wacl ah oo aan muxuu ahaa xalaal ku dhala. intaasoo qodob ayuu rabbi subxaanahu watacaala waliid bin muqiira lacanahu llah oo nin aad iyo aad nabiga sala allahu calayh wasalam u dhibay ahaa ayuu uga caddeeyey muxuu ahaa qur-aanka kariimka ah. waxaa laga yaabaa markaad adigu aad fikirto oo aad maanta fiiriso qodobadan 9 qodob markaad qaadato ee aad fiiriso social media waxaa laga yaabaa inaad aragtid dad noocaas oo kale ah. waxaa marka lagaa rabaa markay noocaas ku sifoobaan walaalayaal oo aad intaad ku fiiriso muraayadan ilaahay subxana watacaala na siiye ku eegana yidhi tooshka ilaahay ku siiye markaad ku ifiso suuratulqalam aad u bandhigto hadduu sidaas ku soo baxo qofku waxaa ku fuulaya waajib in aad ka tagta marka liannahu walaa tudic a ilaahay ku yidhi yani day fiiriya walaa tudic u ilaahay yidhi amar waay amarkan ilaahay subxana watacaala bixiyana